qonsulka ahna sihayaha xilka safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika oo shir jiraa'id ku qabtay maanta xarunta safaaradda ee ku leedahay magaalada Pretoria waxa uu kaga hadlay dhibaatooyinkii ka dhacay todobaadyadii la soo dhaafay deegaanka Soweto ee magaalada Johannesburg. Maxamed Ali Mire Nabadoon ayaa sheegay in safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Pretoria iyo dowladda Koonfur Afrika ay wadaan kulamo daba joog ah oo xal loogu raadinayay dhibaatadii lagu boobay goobaha ganacsiga dadka ajaanibta ay ku lahaayeen deegaanka Soweto ee dhawaan la rajaynayo in ganacsatada Soomaalida ay dib ugu laabtaan goobahaasi ganacsiga oo laga soo barakiciyay. waxaan la socodsiinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo jaaliyadaba in ay dowladda Koonfur Afrika iyo safaaraddu wadaan qorshihii dib loogu celin lahaa dadkaas. waxay safaaraddu sameysay kulamo badan oo la sameysay booliiska, arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, waxaana dhici doona kulamo kale kuwaas oo lagu soo gunaanudi doono xal u helidii shaqooyinkii ka dhacay Soweto iyo wixii la mid ah. sidaas awgeed waxaan ganacsatada ka codsanaynaa in ay u dulqaataan inta hawshaas soo dhamaanayso, mar dhowna waa dhacaya. waxaa intaasi ku daray sihayaha safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika in ay jiraan qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ay dib ugu laabteen deegaanadaasi ayagoo aan xal laga gaarin rabshadihii halkaasi ka dhacay. wuxuuna ka codsaday in dib ay u xiraan goobahaasi ganacsiga oo ay fureen isla markaana ay sugaan inta xal waara laga gaarayo. waxaan soo gaaraya war ah in ay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ku laabteen meelaha ay ka dhaceen qulqulatooyinka sida Soweto. waxaa dowladda Koonfur Afrika amar ku bixisay inaan lagu laaban goobahaas ay ka dhaceen shaqooyinku ilaa inta laga gaarayo xal waara. sidaas awgeed waxaan shakhsiyaadka ka mid ah community-ga ee ganacsatayaasha ee tukaamadooda dib uga furtay Soweto iyo meelaha la halmaala inay tukaamada xiraan sugaana inta laga gaarayo xal waara oo la qancinayo dadkii sameeyay mudaharaadka iyo boobka. arintaas waxay keenaysaa dhib badan, waxayna keeni kartaa dhib badan. sidaas awgeed waxaan ku codsanaynaa ganacsatada Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyada badan uga soo laabtaan una xiraan tukaamada. Cabdillaahi Maxamuud Amiin, Cabdillaahi Qorshe, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.